maanta dagaal culus ayaa ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Dagaalkan ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo sidoo kale ciidamo isku keenkeen ah balse dawladda dhexe hoostaga ama taabacsana. Waxaynu warbixintani ku eegi doonaa daawadayaal tiradii ugu badnayd oo maxaabiis ah ayaa maanta Puntland ay qabatay oo ay ka qabatay ciidanka dawladda ee ku sugnaa duleedka magaalada Gaalkacyo. booliiska Puntland ayaa faahfaahinna dheeraad ah ka bixiyay waxa ayna sheegeen in ay maxaabiis ahaan u qabteen 101 qof oo markaas iskugu jira saraakiil sarsare oo ciidanka hogaaminayay dablay ilaa rag kale oo markaas la sheegay inay ahaayeen kuwa toddobaadyadii u dambeysayba halkani ka waday horinta colaada iyo in Gaalkacyo markaas dagaal uu ka dhaco. waxa Puntland ay sheegtay in tirada dhaawacaha ay yihiin 60 qof halka markaas sidoo kale ay sheegeen in hub culus iyo gaadiid dagaal iyo hub markaas aan Soomaaliya hore looga isticmaalin ay gacanta ku dhigeen gaar ahaan hubka markaas ay dawladda Soomaaliya ugu deeqeen Shiinaha kuwaas oo la doonayay in lagu la dagaalamo dawladda Puntland. haddaba wax la yaab leh ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo. weli dhaawaca iyo meydka ayaa la ururinaya. Puntland waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in maxaabiista la daryeelo in si wanaagsan loola dhaqmo isla markaana kuwa dhaawac ahana markaasi la dabiibo. isbitaalada magaalada Gaalkacyo ilaa Garowe waxa lagu dabiibayaa dhaawacyada tirabeelka ee maanta laga dhaawacay ciidamadii la soo khalday ee doonayay in Puntland ay burburiyaan. ka hortag si fiican loo soo agaasimay ay Puntland samaysay. haddaba dagaalkii maanta Puntland ka dhacay gaar ahaan dhanka gobolka Mudug waxa uu noqday mid si weyn ay ugu guuleysatay Puntland. afka ayaa ciidda loo daray Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta damaciisa ku shaqeynaysay. tani waa fariin kale oo loo dirayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa doonaya in deegaano nabad ah markaas ay ku duulaan. hadda ogow toddobaadkani waxa ciidanka xoogga dalka markaas laga bixiyay oo laga qabsaday deegaanka Teedan oo markaasi dhaca gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya. hubkii cuslaa ee la rabay in lagu la dagaalamo kooxaha argagixisada waxa loo daabulay dhanka Puntland. laakiin Xasan Sheekh Maxamuud caawa chief iyo joog midna uma yaalo. ceeb iyo fadeexad weyn ayaa qaranka mar kale soo gaadhay. Puntland muddo badan ay ka digisay oo waliba ay uga nasteexaysay dawladda dhexe in halkaasi dhaqdhaqaaqa ay ka wada ay ka joojiso. laakiin ugu dambayn Saciid Cabdullaahi Dani ciidamadii fasax iyo amar buuxa ayuu siiyay in gabi ahaanba la soo gabagabeeyay. haddaba maxaabiista ugu badnayd oo Puntland ay qabatay dhaawaca oo 60 kor u dhaafaya iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo la soo bandhigay ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa. saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan oo la gareeyay si share gareeyay oo la wadaaga saaxiibadiin si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ay ku baahinay idin soo gaaraan. aad ayaa u mahadsantiin.